halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda ee Soomaalida qodobada daawo doontaana waxa kamid ah taliyaha ciidanka dhulka Generaal Biixi oo xilka qaadis lagu sameynayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo go'aan ku gaaray inuu xilka ka xayuubiyo taliyaha ciidanka dhulka xilli uu ku sugan yahay gobolka Hiiraan oo ka soconaya howlgalo ka dhan Al-Shabaab xogii ugu dambeeyay iyo sir laga helay taliyaha oo ku sugan gobolka Hiiraan saaxiib idin soo gudbin doona qodobada kalena waxa kamid ah hogaamiyaha weyn afayeenka kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inuu geeriyoodo ugu dambeyn iyo xogo sir ah oo laga dhaxelayo xubno tirsan Al-Shabaab oo ku dhawaaqay geerida Cali Dheere ayaan saaxiib idin soo gudbin doonaa qaybta kale dowladda Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin oo la sameynayo iyada iyo sidoo kalena TPLF la dhigayo xilli wax shuruuda aysan ku xirin xabad joojintani qodobadaasi ku kale barnaamijkan ku faaqidi doonaa saaxiibayaal balse aynu ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu xilka qaadis ku sameeyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga Soomaaliya Generaal Maxamed Tahliil Biixi oo maalmihii dambaba ku sugnaa gobolka Hiiraan xilli gobolkaasi uu ka soconayo howlgallo ka dhan Al-Shabaab xilka qaadista taliyahan ayaa waxa lagu tilmaamay in ay tahay in wali xiriir uu leeyahay hogaankii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena uu ka mid yahay saraakiisha raadiga ah ee la doonayo in xilalka laga xayuubiyo balse dowladda Damul Jadiidna ay dib u dhigatay howlgaladan xilligan ka soconaya gobolada Soomaaliya Generaal Biixi waxa uu ka mid yahay saraakiisha xigtada la madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona muddo badan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya generaalkan dadkii yaqaan waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin dagaalyahan sidoo kalena khibradda ciidanka aad u yaqaan balse xilligan waxa gabaabsi shaqadiisa oo la filayo in dhawaan xilka qaadistiisa lagu dhawaaqo xubnaha kale ee la xaqiijiyay xilalka laga qaaday waxa kamid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Oday Yuusuf Raage oo isagu ku baxaya qaab qabiil sidoo kalena habqaybsiga markii loo fiiriyo 4.5 dabcan waxa uu saameyn ku yeelanayaa sidoo kalena ama uu ka dhex muuqan jiray saraakiishan ay kamid yihiin saraakiishii ugu firfircooneed nabad iyo nolol xilli Damul Jadiid iyo sidoo kalena nabad iyo nolol ay isku hayaan saameyn weyn ay ku dhex yeelanayso dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya iyo sidoo kale agaasimihii awoodda badnaa ee nisa soo maray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxay ku wada sugan yihiin dalka Turkiga iyagoo halkaasi kulamo kala duwan ku yeelanaya sidoo kalena la shiraya xubnaha siyaasiyiinta ugu waaweyn ama ugu tunka weyn ee tiimkooda nabad iyo nolol shaki weyn ayaa soo kala dhaxgalay xukuumadda Soomaaliya xilka qaadista lagu sameynayo Biixi iyo sidoo kalena Odawa waxa ay shaki ka dhaxdhalisay xukuumadda Soomaaliya iyadoo ugu dambeyn ay go'aan ku gaareen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena waa uu ku raacay taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad in xilka laga xayuubiyo taliyaha ciidanka dhulka oo dabcan marka dambena lagu xijiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Oday Yuusuf Raage oo isagu booskiisa ku banayn doono hab qabiil markii loo fiiriyo dhanka 4.5 markaan haddii aanu eegno afayeenkii kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa la soo tabinayaa in uu geeriyooday kadib dhaawac ka soo gaaray dagaal dhawaanahanba ka dhacay gobolka Hiiraan oo la isku farasaaray sidoo kalena wararku qaar waxay tabinayaan in kooxda wali ay qarinayso meydkiisa balse xogo si hoose loo ogaaday ay sheegayaan in Cali Dheere uu geeriyooday sidoo kalena markii ugu dambeysay lagu dabiibayay degmada Aadayabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe balse warar ka madax banaan dowladda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab dabcan xogo laga ma helayo sidoo kalena xogaha kalena waxay tibaaxayaan dhanka dowladda haddii aanu eegno idaacadda ciidanka xoogga dalka afkeeda ku hadasho waxay marar badan sheegtay inuu afayeenkani geeriyooday balse Al-Shabaab ayaa taasi beenisay xilli wararka hadda la isku dhaafsanayo baraha bulshada ay sheegayaan in uu geeriyooday afayeenkii kooxdii Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere sidoo kalena gobolka Hiiraan xilligan waxa ka soconaya howlgallo ka dhan Al-Shabaab iyadoo ciidamada dowladda ay dib u qabsadeen deegaanadii dhawaan ay la wareegtay kooxda Al-Shabaab oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan sidoo kalena gobolka Galgaduudna dabcan waxa ka soconaya guluf dagaal sidoo kale haddii aanu eegno magaalada Muqdisho maanta waxa laga qaaday ciidamo ka tirsan gorgor iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka
oo la qorsheynayo in ay qayb ka noqdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolka hiiraan xilli siyaasiyiinta ugu tunka weyn beesha xawaadle ay ku dhawaaqeen in beesha keliya ay dagaalku qayb ka noqon karin sidoo kalena aysan ku filnayn balse loo baahan yahay in qabaa'ilada soomaaliyeed iyo maamulada deriskala ay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro al-shabaab xildhibaan sanbalolsho oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena u dhashay beesha xawaadle oo ah beesha ugu tunka weyn ee degta gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay in loo baahan yahay in gurmud lala soo gaaro gobolka hiiraan xilli uu sheegay in al-shabaab ay ku xoogananayso gobolkaasi sidoo kalena ay xooggeeda isugu geynayso gobolka hiiraan markaan ugu dambeyntii haddii aynu ku soo afmeerno dalka Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in si shuruud la'aan ah ku aqbashay dhexdhexaadin midowga Afrika Itoobiya iyo TPLF sida uu shaaciyay la taliyaha amniga ee qaranka ee lagu magacaabo Ridwaan Xuseen dowladda Itoobiya ayaa maalmihii dambe waxay duqeymo ka deegaysanaysay gobolka TPLF sidoo kale waxaa la sheegay in xarumo caafimaad iyo sidoo kale meelo lagu xanaaneeyo caruurta ay duqeyno baan ka geysatay midowga Afrika ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya iyo sidoo kale xoogaga Tigreega ee iska soo horjeeda inay wada hadal nabadeed ku yeeshaan wadanka Koonfur Afrika dhamaadka toddobaadkan taas ama ujeedkeedu yahay in lagu soo afjaro colaadda 2 sano jirsatay ee u dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo sidoo kale maamulkan Tigreega saddex ilo diblomaasiyadeed oo diiday in magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay in 1 Oktoobar oo uu qoray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika sidoo kale ninka lagu magacaabo Musa Feki oo ku socotay generaal weyn oo ka tirsan kooxda TPLF waxa uu ninkan u sheegay in xilligan loo baahan yahay in nabad la dhaxdhigo sidoo kalena dadka ku nool TPLF oo dabcan maalmihii dambeba ka qaxay deegaanada maamulkaasi la doonayo in dib loogu soo celiyo deegaanadooda dowladda Itoobiya iyo madaxda gobolka Tigreega iyo waqooyiga dalkaasi ayaa labaduba sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka wada hadallada ama dhexdhexaadinayo midowga Afrika si loo afjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaanka qof oo sidoo kalena bilooyinka ugu dambeeyay ka soconayay waqooyiga dalkaasi sidoo kale Mareykanku ayaa isagu qayb ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo dagaalada TPLF u dhaxeeya dowladda Itoobiya xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu diiday in dhexdhexaadin la kala dhaxdhigo markaan haddii aanu eegno warqad dabcan uu ku qoran yahay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Feki ayaa lagu sheegay in dhexdhexaadintan ay labada dhinacba isku raaceen sidoo kalena ay go'aan ku gaareen in dabcan xilligan nabad la dhaxdhigo sidoo kalena uu sheegay in dib u dejin loo sameyn doono dadkii ka barakacay dagaalada u dhaxeeya kooxda TPLF sidoo kale dowladda Itoobiya uu sheegay in dagaaladani ay ku dhinteen kumanaan qof sidoo kalena intaas in ka badanna ay ka qaxeen deegaanada maamulka Tigreega balse wararka kale ee Itoobiya laga helay ayaa sheegaya in maamulka Tigreega ay wada hadaladani sidoo kalena ku xujeeyeen in Itoobiya ama sidoo kale dowladda Itoobiya ciidamadeedu aysan soo gali karin deegaanada maamulka TPLF wararkii ugu dambeeyay qubanaha TV xilligan daawadayaal wanaagsan